kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal gobolbood naga daawanaysiin kusoo dhawaada barnaamijkeeni xog waran oon aalaba diiradda ku saaro akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee dunida kasoo kordhay haddaba waxaan qiimeyn ku samayn doonaa dagaalka ka socda bariga dhexe iyo saameyn reebka uu sameeyey maalmihii ugu dambeeyey saaxiibkay ilka case ayaa garabkayga fadhiya kaasi oo ah falanqeeyaha barnaamijkan isla markaasina xog naga siin doona dagaalka iyo haatan halka la kala marahayo ilkaasi Ramadaan Mubaarak waa tahay maalintii 13 ayuu dagaalka bariga dhexe socdaa waxaana u muuqdaa mid xuduudka sii gudbahaya haatan bal waxaad inooga warbixisaa 24 saac ee la soo dhaafay dagaalkaasi saameyn reebka u yeeshay وما سنت هاشم وداوداشنا وسلام إن رمضان مبارك بالنا هاي يعني برجع دحى دال كالسعودة وحاول نقضي دجال يعني مالن تكسر دم تكسر درية هاي هنجبادها لنعيد وإذا سنيان إيو نوال بين وتلمامة يا أما وقيح يا أما وعدينا يا إن ولي وهيستكرر بالصبح واستعمالي كرو هاي جوب الشدة وردا كعيسى حالد يعني وحالد أدرى يا بيسو كجحيس وات qof walba oo dabcan oo muuqaaladan daawada ama de goobahaas laga yaabo inuu joogo yaa dareemi kara saameynta iyo culayska iyo xajmiga uu dagaalkani uu leeyahay 24 saac ee la soo dhaafay hadii aan fiirino cid walba waxay isticmaalaysaa awood culus oo ay cid ka soo horjeeda ay u isticmaalaysay Tehran iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalkaasi Mareykanka xulufadu hogaamiye Israa'iil ka mid tahay waxa ay u geysteen weerar aad u culus oo ay u isticmaalaan diyaarada drone-ha waxaana ay markii ugu horeysay si adag oo aad u adag ay u duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin ciidamada la yiraahdo ama ciidamada la yiraahdo ciidamada gaarka ee la yiraahdo Basiij ee dalkaasi ka howlgala warbixinadii ugu dambeeyay ee weeraradaasi Tehran iyo magaalooyin kale taxalay diyaaradaha droneska ee Mareykanka ay u isticmaaleen waxa ay sheegayaan in meelo badan hal mar ay duqeymahaasi ka dhaceen duqeymahan oo ah kuwa badan ayaa ilaa 10 goobood lagu duqeeyay ama lala eegtay khasaaraha soo gaarina waxa la sheegayaa in ciidamo ka tirsan kuwa Basiij weerarkaasi ay ku dhinteen marka waa waji kale cusub oo marka ciidamada Basiijku ilaalada kacaankii ciidamadaas baan maqli jiray ciidamada Basiij maxay Basiij Hashimow waa ciidan uu sameeyay hogaamiyihii kacaanka Ruuxullah Khamani 1979 markii dalkaasi waxa weeye boqortooyadii laga farmaroojiyay jamhuuriyaddan islaamiga la sameeyay ciidankan marka waxa la yiraahdaa ciidanka dadka dulman baa la yiraahdaa waana ciidan qaab musdawacnimo ah u shaqeeya intooda badanna waxay ka yimaadaan dhalinyarada iyo ganacsatada iyo shaqaale kale kuwaasi oo marka qaarkood faa'iido u arka in dawladda ay ku beeraan waxayna ku baahsan yihiin guud ahaan dalka oo dhan waana ciidan inta badan kayd ah oo xilliyada dagaalka waa la isticmaalaa ciidamada caadiga ah ee wadankaasi ka howlgala ee hubaysan waa ay ka duwan yihiin waa ciidan markaas ka kayd ah waa ciidan si joogto ah loo howlgelinin lama howlgelin si joogto ah marka ciidankaas bay xalay Mareykanka iyo Iran ay waxa weeye ay beegsadeen sidaas la mid ah ilaa laba markab oo kuwa shidaalka qaada ah oo dalka Ciraaq laga leeyahay baa loo isticmaalay doonyo dheereeya oo ah kuwa aan cidina wadin oo lagu gubay isla markaana markii la qarxiyay gubtay dalka Ciraaq waxaana lagu eedeeyay ama la sheegay inay ka dambeysay dawladda Iran sidaas la mid ah dadkii shidaalka ugu weynaa ee dalka Cumaan ee ku yaala degada Salalah ayaa iyaguna xalay la qarxiyay oo muuqaalada warbaahinta la soo galiyay iyo baraha bulshada ay muujinayaan iyaga oo gubanay waana يعني جاب علوس أو جاري دولة عمان iyo Iran waa isku fiicnaayeen marin biyoodkan ciriiriga hormusna iyagu dhaxeeya waxa la xustay sidoo kale in Cumaan ay hogaaminaysay ama ay dhaxdhaxaadinaysay Mareykanka iyo Iran inta uu san dagaalkan qarxin maxaa sababay haatan marka beegska cusub maxaa sababay ilaa hadda lama faahfaahinin madaxweynaha dalka Iran waa uu la hadlay madaxda dalka Cumaan waxa uu arintan kala hadlay uu sheegay in baaritaan lagu sameyn doono loona ogaan doono bal weerarkan iyo qaabka
وحوي سامينته دليل يعد جيشتي إقابك ودعي ما دام اللبنان دولة وصن حفالتن يدب وصن كدحين إيران أي من سنيد يعني مركي وهذا كودعي وحال الدمعة تركي كانوا دعي حادية مريكان كي إيران وايد دي أو تركي ما يسمو كرسونين لكن عمان بيكون كرسوناتي عمان تي أكو كرسونات مركا حركة في عنو كدحي وهم بليسه جامعة عصب حتى مجتمع مكلا دورتي إلا الدقيقة وحين نقطي أرين كلا أوجبه أو سكرته ها مركا وحين مجنيسا إن جودها إيران أي يعني إلى هذا كعنك إيه مذحضة إيه ويرك قابك السعودية إيه عده جامعين يسيو حجاء وكلام مذح بناية ومركا قاركود حتى وحجرتي مدحوينها إيران مركي وضلك خليج كرا لجري ويرهدي كالسعودية أول شيء جاي هدي عن ويرها حقه ده لقى سوق قاينين سن بيكسن دونين والسعد ورها لجري دقيقة كده ويرهدي وأيسي السعوديين مركي واحد السعوديين مركي قاركود محي سوق خلاف يعني مدحضة إيران هذا لذا كسر بحية يفعل هذا داعي sidoo kale waxa jira shaki ah Mareykanka iyo Israa'iil baa iyagu laftikooda si kale hawshan ugu dhex jiro oo weerarada fulnaya si ay isugu diraan dalalka muslimka oo ay madax isugu galiyaan si Iiraan lagu sameeyo cadow fara badan weerar jumla ah oo ka hadda ay Mareykanka iyo Israa'iil ku hayaan mid ka weyn loogu qaado si loo burburiyo maadaama ujeedkii iyo qorshe Mareykanka iyo Israa'iil kala hayaan dagaalkan uu fashilmay ilkaas waa tahay sidaad sheegtay ba madaxweynaha Iiraan wuxuu raaligelin ka bixiyay falalkii duqeynta lagu geystay wadamada khaliijka carabta ka dambana weeraradu wali waa ay sii socdaan khasaare intee leeg ba marka ay kaadii bal la fiiriyo markii laga tago Israa'iil iyo Mareykanka oo isku dhinac ah iyo Iiraan oo dhinaca markii laga saaro wadamadan dariskeen dagaalka qaybta ka ahayna sida dadban loo duqeeyay khasaare intee leeg ba gaaray dalalkan horta shalay baan sheegnay in maalintii ilaa 600 milyan oo dollar ay khasaaraan shalay baan sheegnay dalalka khaliijka khasaaruhuna waa wax soo tarayo maalin walba maadaama dagaalku uu socdo dagaalkuna waxa weeye dalalka khaliijka inuu wada gaarayo maalinta ka dambaysa waa uu sii kordhaya dagaalku inta badan hadda meel kale dekadaha hadda waxaad moodaysaa hadda 12 maalmood hore dekadaha inuu ku eka oo Iiraan dekadaha dalalka khaliijka inay ay beegsanaysaa laakiin hadda waxay beegsanaysaa bangiyadii oo hadda bangi weyn oo dalkaasi imaaraadka aad caan uga ah oo la yiraahdo Citibank ayaa albaabada loo laabay oo dagaalkani uu saameyn ku yeesho weerar ay Iiraan ku qaadisay la sheegayo Sacuudi oo kale ilaa 14 diyaaradood oo drone ah ayay sheegtay inay waxa weeye ay soo riday kuwaasi oo kaga 14 waa 18 diyaaradood oo kuwa ciidina wadina دronta ah oo dalka Iiraan waxa weeye laga soo weeraray way sheegtay inay qabatay oo ay waxa weeye iyadoo waxa weeye ay xakamaysay marka uu socdaa wata Ciraaq hadda dib uu ka socdaa Cumaan wata aan sheegnay dalalka kale waxa weeye sidii uu uga socdaa Imaaraadka waxa ka socda Sacuudiga waa 18 diyaaradood kuwa drontahan gacanta ku dhigno aan qabanay marka saameyntu marba kasta ma way sii taraysaa inta badan qiimeyntu markaa ma soo baxdo maalmo kadib waxa soo baxda qiimaha yani dagaalkan ku baxaya ama ugu baxaya cid dagaalamaysa iyo khasaaraha soo gaaraysa marka xaaladda adag ba waxa weeye ka jirta waxaan u imanaynaa Haashimow dhinacyadu sidaas la mid ah jawaadaha ay wada u marinayaan waa kuwo yani aad u tirabeel ah Iiraan waa ay hanjabaysaa oo mar walba waxay leedahay wali ma aanan isticmaalin awoodnadii ugu dambeysay ama awoodnada rasmiga ahayd waxay ku hanjabaysaa inay isticmaali doonto awood culus oo maaragtay ay khasaaro culus u gaarsiin karto huwanta Mareykanka uu hogaamiyo dagaal ku haya sidaas la mid ah Mareykanku iyo Israa'iilna waa ay hanjabaysaa haddii aan fiirino مسؤول سلوك كترسن دولة إيران قرها ميليتري على هذا ورباهنتا رويترز لهذا وحاول شيء إن دجال كهذا الصعدة وأورو كرام ونقوم كرو أما يسرو يكرو دجال قبلات معناها دجال قبلات ودجال كي هره كباحد يسامين بدن وقارن مالك على عصب أول هره وسنجارين. مركا حاجين نقوم كرتا يعني مو أسوي لي من عدينين. لكن وكوهن جوي دجال يسرو يكرو دجال قبلات. sidoo kale waxa uu intaas ku daray in Iiraan wali ay hayso kaarar badan oo ay ciyaari karto yani kaararkaas maxay noqon karaan masaaxiibadii iyo awlaadeedii waxa lagu tilmaamaa dadka ay awlaadeeda waxa lagu tilmaamaa Hizbullah iyo nimanka la yiraahdo Xuutiyiinta Hizbullah dalka already waa ku jiraan oo qayb ka yihiin laakiin wali Xuutiyiintu ma aysan wax weerar ah aysan qaadin marka ma mid kamid ah kaararka
hadda u dhiman ee ay isticmaal rabto hadda ay ka dhawaajisay Iran ma xuutiyiinta ma cid kala ma kaarka ilaa waa isticmaalaya ma hub noqon karaa ida lafta hubna waa noqon karaa xuutiyiinta waa noqon karaa cid kale oo de iyadoo lafskooda ay isleedahay garab bay ku noqon kartaa ay gaashaana wadamada aas ay kamid yihiin way noqon kartaa marka saasay ku hanjabeen marka xaaladdu marka waxa weeye meeshaasi adag ay maraysaa waad kanaalkii Hormuz ee muhiimka ahaa ee Mareykanku dhahay waxaan u diyaarin haynaa maraakiib dagaal oo gudbiya maraakiibta oo anaga amaankiisa gacanta ku hayna ee hala maro Iran ay dhahday waa la eedi doonaa cidii fasax la'aan marta ma la marahayaa sidee wax uga socdaa kanaalka Hormuz mar horena waa sheegnay muhiimadda uu leeyahay iyo halka uu ku yaalo iyo istiraatiijiyad ahaan hadii la xiro dunida waxa uu uga dhigan yahay iyo in boqolkiiba 20 qiyaasta waxa lagu qiyaasay shidaalka dunida halkaasi uu maro hadii la xirana dunida waxa way saameyn culus oo xun uu ku yeelan doono dalal hadda waxa jira sida warbaahinta al-akhbaar ee dalka Lebanon ka soo baxda hadda ay tabinayso inay la hadleen dawladda Iran oo xiriir la sameeyeen oo ay kamid yihiin Turkiga ama mas'uuliyiin Turkiga iyo Masar India iyo Pakistan oo la hadlay dawladda Iran kana codsaday inay joojiso weerarada ay ka wado gacanka Hormuz isla markaana ay furto si dhaqaalihii waxa way halkan dunida maraya uu isugu socdo waata warbaahinta marka sida ay sheegtay Iran jawaab ay arintaas ka bixisay hadda dalkaas ay u soo jeediyeen ama codsiga ay u soo jeediyeen Iran jawaabta ay bixisay waxay ahayd mid aad u adag waxa ayna sheegtay ama jawaabta ay ku sheegtay amaanka wuxuu noqon doonaa mid ay wada helaan dhammaan dalalka gobolka ee uusan jiri doonin dal gaar u helaya marka waxa looga jeedaa dal gaar u helaya macnaheedu waxa weeye dalalkan hadda hadlay ama dalalkan hadda Iran la hadlay waxaad moodaa in Mareykanka uu soo dhaxmaray oo uu ka codsaday in codsigaasi uu gudbiyo ama uu gaarsiiyo si meeshan loo furo Mareykanka si kasta iyo awood kasta waa uu isugu dayay warar badan oo maaragtay mararka qaarkood uu tilmaamay inay waxba ka jirin riwaayad ahaan waa uu sameeyay inuu marayo in jawaabta Iran uusan waxba ka jirin in maraakiibta halkaas joogtay Iran u joogtay ay iyagu ay duqeeyeen warar noocaas ay sheegeen laakiin wixii oo dhan waa la wada yimaado inaysan waxba ka jirin baa la sheegay Iranna awoodda koobaad ee Mareykanka iyadu ay leedahay una xiran yahay cid ay mar tiraahdo mooyaan ama ay u ogolaato mooyaan aysan cid kale mari karin yani tii markay dhacday Mareykanka arintii uu ku fashilmay ee uu awoodi waayay in uu meeshii maartay masaaxiibadii ama isagu u maro waxaad hadda muuqataa in dalalkan uu soo dhaxmaray aragtideeda laakiin jawaabta Iran lafskeedu waxay moodaa inay muujinaysaba dalalkan jawaabta ay siisay inay ka turjumayso in ay dareensan yihiin in Mareykanku uu soo dhaxmaray isla markaana codsi uu soo gudbiyay iyagana uu gaarsiiyo Iran in Mareykan ay furto marka waxa ayna Iran sheegtay in yani hadii Mareykan la marayo oo uu amni noqonayo amnigaas uu noqonayo mid dalalka gobolka oo dhan ay ka wada faa'iideysanayaan laakiin cid gaar ah aysan mari doonin ilka caso waxaan iyadana bal fiirin haynaa dagaalkan muddada socday hadii maamulada xukuumadihii la fiiriyo isayay tan Israel iyo tan Iran oo maaragtay dagaalku intiisa badan u dhaxeeyo geedi socodkii dawladnimada saameyn reebka sideen ayada u aragnaa oo wadankeebu saameyn badan ku leeyahay dawladihii ma dhisan yihiin noloshii sidee tahay horta saameynta dalalka dagaalamaya si ka daran buu ugu yeeshay dalalka qaarkood oo dalalkan ku jirin laakiin daweerada ay gaarayaan gaar ahaan dalalka khaliijka ee Mareykanka uu ku leeyahay xarumaha uu ku leeyahay masaligida uu ku leeyahay Israel oo kale waxaan warbixinada hadda la qoray يعني وأفرتن إزداد الساعة هذا صار في كهروي بحنا التبي إن كسر أيها قرن هيان إلى اللي حكون يشان بقول أو اسمه أيها لو بربري ورضا إيران أي كويسو إسرائيل تل أبيب يمجالو ينكلدون أيو جيسينيس سامر مركب علوس بكوياش ومركب الفيريا دكابياشي يو حرمه يعني dadku ay ku sugnaayeen oo waxa weeye horey baa ay u sheegtay ilaa 10,000 oo goobood oo dad rayid ah xarumo u ahaa in dawladaha Mareykanka iyo Israel ay beegsadeen marka saameyn culus oo mid dhaqaale leh oo mid military leh oo dhan walba leh ayuu dalkan ku yeeshay dalalka dagaalamaya dalalka kale ee aan ku jirin nafskooda saameyntu waa ay gaadhay laakiin kuwa hadda muxuu ahaa dagaalamaya ayuu u dhaxeeya Mareykanka kale marka soo qaadan
California cabsi fara badan baa xalay laga qabay in diyaaradaha droneska aan cidina wadin Iran ay leedahay inay soo gaari karaan oo halkaasi ay duqeymo ka geysan karaan hadiiba marka baqdintii iyo cabsidii Mareykanka ay gaadhay in Iran halka ay soo gaari karto diyaaradaha droneska ay u isticmaali karto waa marka xaalad adag oo aad ku dareensinaysa dagaalkan iyo waxa way halka uu marayo iyo sida uu maarkay meel u gaarayo iyo cabsida laga qabo marka la fiiriyo awoodda Iran iyo sida maartay ay isaga difaacday weerarka huwanta Mareykanka u hogaamiyo in Iran ay meel walba hadda ay gaari karto oo Mareykanka gudihiisa ay ka adeegan Iran maadaama hogaamiyahoodii la dilay hadda iyo aas cusub ay galeen dawladnimadoodii bal sidee tahay maanta sidee tahay waa run waa su'aaladii aad u muhiim ah weeye qiimeyn Mareykanka uu sameeyay markii hore dabcan markuu dagaal galay qiimeyn buu sameeyay qiimeyn buu galay haddana qiimeyn ayuu sameeyay sirdoonka Mareykanku sida ay tabinayso warbaahinta Reuters warbaahinta Reuters waxay leedahay qiimeynta sirdoonka Mareykanka ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in dawladda dalka Iran awoodeedii wali ay si buuxda u shaqeynayso oo wali aysan burburin ama aysan u burburin sidii ay qorsheynayeen ama ay u rabeen Mareykanka iyo Israa'iil qiimeyntan marka waxay ku ogaadeen sirdoonka Mareykanka dhowr arrimood kow hogaankii dalka Iran wali inuu si weyn u midaysan yahay oo bedelkii markii hore Mareykanka iyo xulufadiisa ay rabeen in hogaankaasi uu kala qaybsamo maadaama qayb la laayay saana lagu dhaxgalo khalkhalna uu saa ku abuurmo hadda waxa soo baxaysa in arintii arin ka duwan ay sirdoonka Mareykanka u soo baxdo waa Mareykanka wax saadahaya maahan cid kale waa Mareykankii weerarayay cadawga u arkayay weerarkan bilowgiisa soo iska lahaa walina hanjabaya cidda dhahaysa madaxda ama hogaanka dalka Iran wali sidii ayuu u midaysan yahay sidaas la mid ah qiimeynta sirdoonka Mareykanka waxay ku ogaadeen in dawladda wali ay gacanta ku hayso maamulka dalka iyo adeegyada bulshada oo aysan jirin wax saameyn ah iyo wax dhaawac ah oo soo gaaray nidaamkii dawladeed iyo hay'adkii dawladeed ee dalkaasi qodobka saddexaad waa in kastoo hogaamiyaha sare la dilay oo waxa way hogaamiyihii ruuxiga ah oo kamid ahaa oo waxa way ay taliyaal amni ay kamid ahaayeen haddana nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi uusan wali sidiisii u shaqeynayo oo uusan jamin marka waxa loo ogaan karaa halkaasi in Iran wali ay dhisan tahay saraakiishii ka baxay ee dagaalka lagu dilay ee muhiimka ah xilalka ugu sareeyay hayay iyo soo firaaq ma soo gelin oo halkaas culays kama soo kordhin ilaa hadda ma jiro maadaama Iran qaabka u dhisan tahay iyo dawlad kasta qaabka u dhisan tahay iyo dawlad cabsi qabta amni oo dareemaysa inay cadow awood badan ay leedahay sida Iran oo kale ah mar walba waxa ay sameeynaysaa Iran ama gudaheeda ka jira hogaamiyaasha amniga iyo taliyaasha iyo hogaamiyaasha waxa weeye kale kuwa diintaba inta waxa weeye waa kuwa aad u fara badan loogu talagalay hadii qof la dilo ama qof meesha ka baxo in la helo qof kale oo bedela oo shaqadii halkii ka sii wada ma si aan waxa weeye aysan u imanin wax gaaba ama maarta wax firaaqa aysan midna u imanin marka Iran waxay u muuqataa hogaamiyaashii la dilay iyo dagaalka culus ee Mareykanka iyo waxa weeye Israa'iil ay ku hayaan inaysan haba yaraatee wax weyn oo iska bedelay uusan jirin sida ay waxa weeye iyaguba ay tilmaamayaan sidaasi waa macaha qiimeynta Mareykanka sirdoonka ay sameeyeen sidoo kale waxa jira cabsi badan oo soo baxaysa oo ay sheegayaan warbaahinada qaar sida wargeyska Foreign Policy warbixin uu qoray uu sheegayo in dagaalka hadda bariga dhexe uu si degdeg ah uga tallaabay una saameyn ku yeeshay dalal kale oo caalamka kana baxsan kuwii dagaalka uu dhaxay wargeysku marka warbixintiisa dhowr qodob buu soo qaatay oo uu leeyahay dagaalku wuxuu ku fiday dalal badan oo gobolka ah labo xiisadda inay saameyn ku yeelatay ganacsigii maraakiibtii suuqyada tamarta ee ka baxsan dalalkan diriirta ama dagaalkan uu dhaxeeyo sidoo kale in ay jirto khatar in dagaalkan uu isu rogo dagaal caalami ah haddii isu bedelana waa halis kale oo dunidii soo wajahaysa oo dagaalkani hadda waa Iran oo dhinaca Iran yani hal cid baa weheliso waa nimanka la yiraahdo Hezbollahna Lebanon bay ku sugan yihiin iyagana waxa weeye culays Mareykanka iyo Israa'iil ayaa ku haysa marka waa Iran oo kaliya la dhihi kara dagaalkan hadda iyo xulufadii Mareykanku uu hogaaminayay iyadoo xulufadii Mareykanka uu hogaaminayay iyo Iran dagaalkan uu dhaxeeyo haddana wax weyn oo iska bedelay Iran awoodeedii ma jiro wali sidii bay hawsha u socotaa wali sidii bay u hanjabaysaa sidaasi si lamid ah Hashimo markaan ku socono dagaalkan oo aan waxa weeye dabcan waan u iman doonaa wada hadallada iyo qaabka wax u socdo waan iman doonaa xalay mid kamid ah weeraradii ugu cuslaa ee Mareykanka iyo Israa'iil
ay ka geysteen Lubnaan iyo dalka Iran oo diyaaradaha droniska iyo maartay aad loo isticmaalay hubka culus baa la isticmaalayay weerarada marka waxay saameeyeen oo lagu qaaday Lubnaan iyo Iran gudaheeda waxaana ay dhaxmareen yani Hezbollah iyo Iran oo dhinaca ama Hezbollah iyo ilaalada kacaanka oo dhinaca iyo Israel iyo Mareykanka oo dhinaca ama Israel oo haysta taageerada Mareykanka iyo Hezbollah oo haysta taageerada ilaalada kacaanka Iran wakaalada wararka ee Mahr ee dalka Iran ka soo baxda warbixintan oo ay wax ka qortay ama warbixintan iyadoo ay daabacday waxay sheegtay in weerar culus oo ay fuliyeen huwanta waxay ku tilmaameen Mareykanka Israel iyo cidii la socota in lagu qaaday goobaha warshadaha sida Robert Karim ee koonfurta magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in magaalada Beirut wadnaheedii inay ku dhaxan duqeymo aad u culus oo ay Israel ay fulinayso kuwaasoo lagu beegsaday guryo iyo maarta kale oo muhiim sidaas la mid ah ilaalada kacaanka iyo Hezbollah waxa ay fuliyeen hawlgal ay sheegeen inay ku qaadeen yani waqooyiga dhulka Israel oo ay ku burburiyeen shabakado iyo waliba goobo kale oo muhiim u ah hoggaanka dalkaasi Netanyahu marka waa weeraradu marka way socdaan habeen iyo maalinba way socdaan xilli ma laha saacadihii saacad yani daqiiqad second ama ilbiriqsi way hoos isu bedelaysaa ama diyaarad ama drone ha isticmaalo ama maraakiib ha la isticmaalo ama gantaalaha la isticmaalo ama maartay wax kale ha la isticmaalo miinooyin biyaha lagu miinay la xirayaa ee Iran ay isticmaalayso marka saasay marka hawshu ay isu bedelaysaa sidaas la mid ah Mareykanka يعني ديك بح آد وين أو دقالة أيها دقال كان يكسو قاري وربحنا هذا هذا صباح يوحي شيء يعني تضبطي مع المود وجوه الرئيس إن مريكنك دقال كان وقع ذي كوية 8 بليون لبيع سدح يعني كوية 8 لبيع سدح بليون $. إن مريكنك وقع ذي وحال الشيء دقالها سينو يهي يعني متك وبضنا الله استعماله هالقل ميلتري بيكلا صداف هاي بيكلا صداف مركا هديه مركز دوام المود كويو 8.6 بليون $. لا استعمالي تدوام المود داركنا ما صدق حتى ما وصعده ما يقول نقول كره حدو سي سعود الواتن مع المود بال ونقضه ما يقول استعمالي كره يعني وعليس آدو بدن أو دقالة أو مريكا يحلفديسي soo gaaray trillions buu gaari doonaa waata ilka casoo gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena ayaynu sii soconaa dagaalkan halkaasi maraya heerarka kala duwan marahaya waxaa jiri jiray beel caalamka ka socoto wax dhexdhexaadisi iyo wadan isdhiiba iyo Mareykankana waxaa lagu yaqaan inta badan markuu culays siyaasadeed dareemo inuu hawshaasi ka baxo ma jira miya wax la xiriira dhaxgal wadamadan is haya hashmo way jiraan dalal fara ku tirisa oo dhexdhexaadin maahan laakiin ku baaqayay ama baaqyo kala duwan u jeedinay in dagaalkan la joojiyo maadaama dagaalkan dunida uu saameyn ku yeeshay hadduu sii socdana saameyn kale oo culus inuu sii yeelan karo dalalka hadda saameynta ku yeeshay kuwa kasii badanna uu saameyn xun uu ku reebi karo qaramada midoobay marka dagaalku bilowday fadhi bay yeelatay wax hadda weyn oo wax ka soo naascad ama wax maaragtay hadda dadaalaho hadda muuqdo oo ay samaysay ma jiraan marka hadda wax dhexdhexaadin oo quman oo socota ma jiraan marka laga reebo Mareykanka iyo Israel markii ay dagaalkan ku fashilmeen in hadda ay doonayaan in dagaalkan ay joojiyaan laakiin Iiraanna ay waxa way shuruudo adag ay soo bandhigtay waxa kamid ah shuruudaas waxa ka bixin madaxweynaha dalka Iiraan ba horta ka hadlay Mareykanku sidaan horeyba barnaamijyo hore ku sheegnay maalmihii la soo dhaafay markii uu ogaaday awoodii Iiraan qaabkii isaga uu doonayay inaysan u burburin markii uu ogaaday Mareykanka iyo xulafadiisa in hawlgalkii ay qorsheeyeen ay ku qaadeen dalkaasi inuu fashilmay markii ay ogaadeen awoodda dalkaasi inay tahay mid weli jirta siina jiri doonta markii ay ogaadeen si hadda aan sheegnay sirdoonka Mareykanka in hogaankii dalkaasi uu mideysan yahay in dawladdii ay shaqaynayso in haba yaraatee wax weyn iska bedelay si kastoo hogaamiyaal loo dilay uusan jirin Mareykanku iyo xulafadiisa waxa ay bilaabeen dadaalo ay ku doonayaan in wada hadal la furo dagaalkana la joojiyo marka qaab diblomaasiyadeed bay waxa weeye hawshan ay u wadeen inay dalal la xiriiraan Ruushka Cumaan oo wada hadaladii iyadoo wada waxa weeye Mareykanku uu fashilo weerar u qaaday dalal kale oo dhaxmarayo oo laga yaabo marka qaarkood inaan la fahansanayn oo hadda aan sheegnay oo Turkiga iyo Pakistan iyo India iyo inuu Mareykanku dhaxmarayo qiimeynteena in Hormuz Iran ay furto oo waxa weeye ay
xanibaad halkaas ay ka wada ay joojiso waxaas oo dhan markaan fiirino iyo dhiigbaxa dhaqaale Mareykanka soo gaaray burburka waxa weeye Israel soo gaaray waxaas oo dhan markaan fiirino Mareykanka qaab diblomaasiyadeed maadaama uusan dhihin karin dagaalkii waan joojiyay waa inuu waxa weeye isticmaalaa channel iyo wadooyin kala duwan iyo wadiiqooyin kale oo dawlado kale ay arintii waxa weeye ku qanciyaan Iran dagaalka inay joojiso Iran ayadu waxay sheegtay dagaalkani Mareykan baa bilaabay iyo xulfadiisa iyaga ayayna tahay ama ay ka go'da inay joojiyaan anuma joojinayna bay dhahan dagaalka mana istaagayaan hore bay ay u sheegeen hadda marka waxa soo baxday Mareykankii oo telefoonadii laga qaban laayayba marka shuruudo adagna lagu xilay in waxa weeye dagaalkaasi Mareykanku uu wacaya Mareykanku waa inuu mandana cid u wacayo horta aan u gudo galno madaxweynaha Iran iyo dagaalkan waxa uu ka yiri saddex shuruudood oo adag oo yani midba kale ka daranta oo Mareykanku mid uu qaato una garanaynin oo uu san liqi karin isaga xulfadiisa uu soo bandhigay oo dagaalkan ku xidh inuu joojiyo koow Mareykanka iyo Israel in ay bixiyaan magdhow khasaaraha ay geysteen labadii dagaal waa dagaalkii hore 12 maalmood iyo kan hadda socdo oo maanta maalinta 13aad galay ma bixin karaan marka waa su'aal isweydiin mudan dadkii ay geysteen dadkii ay laayeen goobihii ay burburiyeen khasaarihii dhaqaale ay geysteen maraakiibtii wax walba yani waxaas oo dhaqaalaha laftirkeeda Israel lagu weerarahay inay badul saataa laga yaabaa hubkii laftirkeeda ay isticmaalayso Iran ay ku weerarayso ama khaliijka ku weerarayso ama Israel Mareykanka gantaalada calaaqada tawa qodob marka magdhowga hal dagaal ma waa labadii dagaalba waa dagaalkii hore iyo kan tawa qodob qodobka labaad ee madaxweynaha Iran uu shuruuda uga dhigay dagaalka inuu istaago ama la joojiyo waa in la aqoonsado xuquuqda sharciga ee Iran ay u leedahay madax banaanida in ay yani madax banaanida leed oo lagu soo xadgudbayo oo dalalkan ay dhibaato ku hayeen oo mar walba ay hanjabaad ku hayeen iyo in nuclear nabadeed inay samaysan karto oo Iran marar badan bay sheegtay nuclearka ay samaysanayso inuu yahay mid nabadeed oo cidna aysan dhibaato iyo caqabad ku ahayn halka Mareykanka iyo xulfadiisa ama reer galbeedkaba ay u arkayeen nuclear ay samaysato Iran in iyaga uu mar walba khatar uu ku yahay waana sababta mar walba ay dadaalka iyo waqtiga ay ugu bixinayeen ama sirdoon ha noqoto ay hawshan ay ku ogaanayaan ama dalal kale oo dhex marayaan ama wada hadallo ama cunaqabatayno la saarayay Iran marka hadda waa shuruud aad u adag hadii loo aqbalana fursad weyn bay Iran u tahay oo hub nuclear ay ku samaysan karto marka waa in waxa weeye madax banaanida dalkaasi la aqoonsado isla markaana hub nuclear oo nabadeed inay samaysato loo ogolaado oo la joojiyo handadaadaha iyo hanjabaadaha iyo weerarada lagu hayo gorgortan kaleeto soo mi jiro ka baxsan in qaybo kamid ah laga tanaasulo hawshaas sida nuclear ka kaleeto Mareykanka iyo ayagu reer galbeedka way rabeen inay ka tanaasusho laakiin de ayagu hadda ma doonayaan inay ka tanaasulaan horena way u diideen waxa lagu weerarayna waa inay ka tanaasuli weeyeen cunaqabataynadii la saarayna waa ay shaqeyn weeyeen waa u dhitin weeyday Iran qodobka saddexaad waxa weeye in la bixiyo damaanad qaad caalami ah oo lagu hortagayo weerarada mustaqbalka oo ka yimaada Iran iyo ka yimaada Mareykanka iyo Israel oo ka dhanaha yani dawladda Iran waa qodob kale isagana muhiim ah dagaaladii lagu qaadayay hadii shuruudan la hirgeliyo inaysan dib u soo laaban doonin la joojin doono saddex shuruudood waa saddex shuruudo oo adag oo midba kale ay daran tahay oo ay adag tahay Mareykanka iyo Israel iyo cid kasta oo ku raacsan dagaalkan in ay aqbalaan ama ay qaataan waan soo gabagabeynayna Mareykanka arrinta soo gabagabeynayna marka Mareykanka wali muusan arrintaas iyagu hanjabaadana way jeedinayaan sidaas la mid ah waxaan ku jirnaa wali arrimaha wada hadallada Mareykanka dadaalada uu bixinayo uu ku doonayo inuu kula xiriiro dawladda Iran dawladana uu diraya isagana wuxuu doonayaa inuu toos ula xiriiro waxa jira sida warbaahinta Iran ay tabinayso ergey madaxweynaha Trump u qaabsan bariga dhexe oo leeyahay Steve Witkoff ilaa laba jeer baa waxa la sheegay inuu la xiriiray ama uu cayshalay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ninka la yiraahdo Abbas Karachi si looga wada hadlo joojinta dagaalka laakiin Iran ayaan ka jawaabin telefoonadaas ama wasiirka arrimaha dibadda Iran وسيبها جرت التليفون كيس الله ما هو قبل كره قف إسرائيليان ka jawaab waayay de ma cabsiba jirta ma wax kala jirta laakiin laba wicitaan uu sameeyay in Witkoff oo Trump u qaabsan bariga dhexe in uu wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu ka jawaab waayay sidoo kale Trump waxa la sheegayaa in uu ka codsaday xooga amniga ee ku sugan gobolka
bariga dhexe ama uu amrayba in laga fogaado meelaha ama macnaha badda Iran oo aan wax duqeyna aan loo geysanin أنا ما أدري مركز قيبته وده بس أرنتهم وده هذا اللذا مريكن كهذا وحوي مركز أمري لكن أمه إنه كفش الماء تلي كحيان إذا مضى إلى لذا كعانك ذلك إيراني كلهم مقعبة علي فدافي وحقوش شيء إن دولار ترام وتن إيو ومركز وتن يدرات تن يدرات ويسكت إن لجارو حبة توجين وداخل التوجي وحقوش شيء تلي كحيان إلى هذا كعانك إيران وما أنت سوق دري إن عدوك وجوليسن لها هدي عدوك وجوليسن لها دجالك وصن بعدين دحدحادين عالمها سلو جارح بتشوتي معناها وحكوضة يعني مريك كنت دلالة وبحني يعني عمان هلا صهده أما دلك هلا صهده أما يسوي ستوصل ما ضحدي إيران هو عين هدي معناها وكل البنية إن حبذا الجوجي هدي أي جوليسن لها إن مريك كي يحلو فديسو إن يسجل تهمبا دلالة نوع أنا حب جوجنتي وهذا الله يكون البنية إتان معناها كده جنت هاي قلت رئيس وقاعد مريك كي يحلو فديسي حالة دمر كالكاسي مريسا إيران وحبيس كمان بدلين وولي وتاجنتها وسوها نشويسها مريك كي يحلو فديسي هذا واد علينا سي لمودي وحوان نقون واي أما سيد مودي وحوان نقون وايين وخسارة بدن بدل كني كسو جاري ودمدي الخليج كي حالة دي ولي واقو أدق هاي يعني هذا وحاد كده دائما كرتا خليج واحد سو جاري نيروبي أو كلو عاصمة وطن كينيا dadkii ganacsiyada u aajiri dalalka khaliijka si gaar ah waliba imaaraadka waxa weeye dharka iyo waxyaabaha ka keeni jiray in hadda waxa weeye horta ma gadatay dharka ciidda ma gadatay ciidii xagga ku xanweeyeen khamiisiin iyo wixii xiranay dadkii ka xanweeyeen baan ku jiraa gebi gaba hay oo dharada xagga loo diray ilaa hadda way xanweeyeen waa soo bixilayeen marka xaaladdu marka meel adag bay maraysa oo waxa weeye dharkii la xiran lahaa in waa ka yaabay marka nin walba waxa weeye afrikaan hada fashion ma jiro si neefkiisa ariga intuu harag ka bixin harag uu xiran doon u muuqata xaaladdu sii socoto marka Mareykankii iyo Israa'iil xulufadii Mareykanka hogaaminaya dagaalkii waa ku fashilmeen maanta waxay ku dadaalayaan wada hadal Iiraanna waa diidanta shuruudaha adag bay ku xidhay halku wax ku dambeeyay waan ogaan doonaa aad baad mahadsantahay ilkaas daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena xog waran oo markaasi aan ku qiimeynay halka haatan uu marahayo dagaalka ka socda bariga dhexe waxaan rajaynaynaa dagaalkaasi inuu noqdo mid istaaga oo markaasi wariyahana ilkaasana qamiiskiisii uu nabad ku soo gaaro oo ku rajaynaa ilkaas qamiiskaaga inuu nabad ku soo gaaro